toddoba xildhibaan oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Ceergaabo oo maanta qaar ka mid ah warbaahinta kula hadlayay gudaha magaalada Ceergaabo ayaa iska caslay xisbiyada kulmiye iyo cid oo ay hore uga tirsanaan jireen iyagoo ku biiray xisbiga mucaaradka ee wadani waxaana xildhibaanadani sharaxaad dheeraad ka bixiyeen sababta haatan ku kaliftay inay iska caslaan xisbiyadaasi iyagoo ka hadlayay iscaslaadooda waxaa hadaladoodii ka mid ahaa anigoo ah maxamed axmed jaamac xildhibaan golaha deegaanka ah ka soo baxay xisbiga ucud markii aan fikiray arkay siyaasadayada fadhiya xisbiga ucud waxaan door biday inaan aniga iyo taageerayaashayaduba maskaxdayada iyo muuqayaga kula shaqayno xisbiga wadani anigoo Axmed Ismaaciil Cali oo ah xubin golaha deegaanka ah kana soo baxay ururadii dhacay muddadii sidii sharcigu ahaana ugu biiray kulmiye waxaan maanta halka ka sheegayaa oo aan u cadaynayaa ummadda inta hor taagan iyo inta ay daawan doonta inaan kulmiye ka baxay oo aan u wareegay xisbiga wadani anigoo ah xildhibaan Cabdiraxmaan Axmed Ismaaciil kana soo baxay markii hore ururadii dhacay ee ururkii rays ka bacdina ku biiray xisbiga kulmiye mar ugu horeyn waxaan halkan ka cadaynayaa inaan maxay ahay toy maanta oo ay taariikhdu tahay 15kii bishii 8aad aan ku soo biiray oo u soo digarrotay xisbiga wadani oo taageerayaashaydiina ugu baaqaya in waqtigii madaxweynuhu dhammaaday tartankiina uu ka hadhay musharaxiintuna ay u siman yihiin dadka sidaa darteed waxaan taageerayaashaydii ugu baaqayaa oo aan halkan ka soo jeedinayaa inaynu u codayno xisbiga maxay ahayd wadani sida dee aad xildhibaanada inta badan ku arkayseen iminka oo ay ahaayeen qayb cid iyo waxaanu kala leenahay midna ma jiro isku haybtu waxay tahay marka meel loo wada guurayo bay haybtu tahay hayb kale oo iminka jirtaa ma jirto taas taa weeye talabaad aniga laftaydu xisbiga kulmiye baan mar soo eegay oo soo indheeyay laakiin waa ka soo digarrogtay waxaana u soo digarrogtay xisbiga wadani marka sidaa awgeed waxaanu leenahay haddana qayb baan naga maqan iminka laftayada xildhibaanadii intii aanu ku soo digarroganay oo ah xisbigii ummadda ka soo baxay marka sidaa awgeed anigoo magacaygu yahay qamar maxamed saalax ama qamar taleex ninba siduu u yaqaano waxaan idiin sheegayaa waxaan ahay dadkii anigu ka soo baxay ummadda markii horeeto kadibna u digarrogtay xisbiga kulmiye aniga oo markaa ka baadhayay xisbiga kulmiye in uu darajo sare uu gaadhsiiyo waddanka laakiin markii aan dirsay markii aan ogaaday markii aan la macaamilay xisbiga kulmiye iyo dadka oo ah madaxda waxay ila noqotay inaanu dalka meel gaadhsiinaynin badbaadadiisana dalka aanu haynin laakiin badbaadadu ay ku jirto xisbiga wadani annagu waxaan ahay xildhibaanadii golaha deegaanka intii ugu atifsanayd halkan joogta waxaan ka soo baxay xisbiga la yiraahdo xaqsoor anigu maalintiiba waxaan ku biiray wadani baan la shaqeeyay si kastaba ha ahaatee waxaa muddooyinkii ugu dambeeyay soo tarayay xildhibaano ka tirsan golayaasha deegaanka dalka oo iska caslayay xisbiyada kulmiye iyo cid kuna biiraya xisbiga mucaaradka ee wadani barkhad maxamuud geedi bulsha TV magaalada Ceergaabo.